Assalaamu calaykum saaxiibayaal mar kale kusoo dhawaada barta aan youtube-ka ku leenahay. Magacaygu waa Xuseen Xaaji Xasan. Maanta iyana waxaan idin wadnaa sheeko runtii xiiso leh. Waxay ka dhacday wadanka Kenya. Waa ninka loogu doonista badnaa guud ahaan dalka Kenya. Sheeko in badan dadka dunida ku nool markii ay maqleen ay aad ula fajaceen. Waxaan ka hadlaynaa Daniel Gajumo oo ka mid ah ragga ugu halista badan ee soo mara dalka Kenya. waxa uu ahaa mar ganacsade baabuurta ka ganacsada oo ka soo jeeda gobolka Thika ee dalka Kenya. Isla markaana waxa uu ahaa aabba leh 4 caruur ah. Laakiin dhinaca booliska iyo dowladda Kenya agtoodu waxa uu ka ahaa tuugii loogu doonista badnaa guud ahaan dalka Kenya. Nin dacwado badan ama raq soo qabasho ah ay ka yaalaan maxkamadda iyo maxkamado oo uu ka dhuuman jiray balse ku xukumay xukun dil ah isagoo oo maqan. Waxa uu si xor ah ugu noolaa isagoo oo ku dhuumaaleysanaya guud ahaan dalka Kenya gobolada uu ka kooban yahay. Waxaa xiiso leh in qoyskiisa, xaaskiisa, hooyadiis iyaguna ay dambiyo uu geystay ay ku lug lahaayeen, isla markaana ay qayb ka ahaayeen falalka la yaabka leh ee ninkan uu geystay. Haddaba waa kuma Daniel Gajumo, sidee ayuu wiil tuulo ku nool u noqday hogaamiye kooxeed laga baqo guud ahaan Kenya? Sidee ayuu ku noqday tuugii loogu doonista badnaa? Sidee ayuu ku noqday ninka falalkan oo soo socda dhammaan geystay isagoo oo hogaaminaya kooxo kala duwan oo tuuga ah? Sheekadan ayaan ku eegi doonaa. Kusoo dhawaada mar kale barteena youtube-ka. Su'aalahaasi iyo jawaabahoodaba waxaan ku eegi doonaa warbixintan xiisaha leh. Daniel Gajumo Dutere ayaa magaciisa oo dhameystiran loo yaqaan. Waxa uuna ku dhashay Kiamu County oo ah gobol ka tirsan dalka Kenya. Waxa uu si gaar ah ku barbaaray Juja oo ka tirsan isla gobolka Kiamu. Waxa uu ahaa wiil aad u da'yar laakiin dib badan xilligii caruurnimadiisa. Caruurnimadiisu waxa uu ahaa wiil ciyaalka ay ka heebeystaan sida ay u dhigeen warbixinta ama warbixinada baariseed lagu daawacay. Muuqaalkiisu waxa uu u muuqday sida qof furfuran oo dadka la macaamila, laakiin jir ahaan waxa uu ahaa nin xooggan. Waxa uu ka soo jeeday qoys faqri ah oo aan xoolo badan haysan. Markii uu gaaray da'da 30-meeyadii, Daniel waxa uu noqday ganacsade ka ganacsada baabuurta caanka ah ee ugu qaalisan guud ahaan dalka Kenya. Marka waxa uu joogaa gobolka Thika ee u dhow caasimadda Nairobi. Waxa uu ka dhex ganacsan jiray goobaha ama gobolada ugu mashquulka badan guud ahaan Kenya. Waxa uu ku jiray xilligaasi ama uu ku noolaa nolol aad u qurux badan. Asxaabtiisu waxay ku tilmaami jireen nin deeqsi ah oo naxariis badan. Habeeno badan ayuu ku qarash gareyn jiray lacago aad u fara badan si muddo hal habeen ah ama waqtiyo kala duwan ayuu bixin jiray lacag aysan maskaxdaadu qaadan karin, taas oo dadku ay la yaabi jireen. Qoyskiisu waxa uu ahaa qoys caan ah. waxa uu dhalay aan yiraahdo 4 caruur ah. Waxa uu lahaa xaas, hooyadiis iyo aabihiisna waa ay joogeen, balse waxay ku tilmaami jireen ama ay u yaqaaneen mid ka mid ah in uu yahay dadka ugu naxariista badan, ugu deeqsisan, isla markaana ugu ixtiraamka badan marka la joogo dhinaca waalidkiisa iyo qoyskiisa. Laakiin dadka agtooda waxa uu ka ahaa tuugii ugu halista badnaa ee soo mara abid guud ahaan Kenya. Ninkan aan ka hadlayno sheekadiisa waxa uu sidoo kale xaaskiisu uu baray tuuganimada, iyadoo mar lagu eedeeyay in ay xaday Toyota Harrier iyadoo hub wadata oo iska dhigaysay askari booliis ah. Waxayna ninka ay gaariga ka qaadatay ee ku joojisay Raila Road meesha loo yaqaano. Waxay sidoo kale gaari ka xaday ilaa 2 qof oo kale
sida warbixinada baariseed lagu ogaaday. Inkasta oo ay bedeshay taarigada baabuurtaasi, ciidanka Flying Squad ayaa gawaaridaasi helay iyaga oo xiray xaaska ninkan aan sheekadiisa ka sheekeynayno, laakiin waxa lagu sii daayay marar badan damaanad, iyadoo markii ugu dambeysay lagu daayay damaanad 500,000 oo Kenyan shilin ah. diiwaanka dambiyada ee Daniel haddii aan u sii gudagalno waxa uu soo taxnaa sanado badan. booliisku waxay u aqoonsadeen tuug khatar badan oo markasta ka baxsada sharciga. dambigiisii ugu weynaa ee ugu horeeyay waxa uu dhacay June 2014 waxa uuna ka dhacay meesha loo yaqaano Kasarani. isaga iyo Stephen Kamal Mangai waxay dhaceen ganacsade caan ah oo dalka Kenya laga yaqaano oo lagu magacaabo Patrick Kariuki, waxayna ku qaadeen waxayna ka qaateen gaari nooca loo yaqaano Isuzu. waxay ka qaateen sidoo kale 300 oo haamo gaas ah, 117,000 oo shilin oo Kenyan ah, 2 taleefan. waxa sidoo kale la qabtay ninkan maxkamad ayaa la geeyay, damaanad ayaana lagu sii daayay, laakiin waa uu baxsaday. dacwadiina halkaasi ayay ku burburtay. mar kale 2015 Daniel iyo kooxdiisu waxa ay iska dhigeen koox boolis ah, waxa ayna joojiyeen gaari xamuul ah oo ay ku jireen ama siday laptops, dhar iyo taleefano qiimahoodu uu gaarayo isku darka 60 milyan oo shilinka Kenyaanka ah. alaabtii la xaday waxa laga helay gurigiisa ama guriga reerkiisa, hooyadiis, xaaskiisa iyo dhammaan qoyskiisa ayaa la xiray, laakiin Daniel mar kale waa uu baxsaday. dhacdo kale sanadkii 2017 kooxdiisu waxay isku dayeen in ay dhacaan maxkamadda Supreme Equity Bangi ku taala Eldoret. booliiska ayaa waxa ay soo gaareen goobtaasi. waa mid ka mid ah bangiyada ugu weyn magaalada Eldoret ee dalka Kenya. qaar ka mid ah tuugadii waa la qabqabtay. hub iyo gawaari been abuur ah iyo gawaari oo ay wateen ayaa laga helay goobtaasi. markii la wareystay tuugadiina waxa ay sheegeen in Daniel uu ahaa maskaxda howlgalkan oo dhan. wuxuu lahaa amar qabasho oo maxkamaddu ay horey amar ugu soo saartay si loo soo qabto, haddana waxa uu ahaa mid aan la qaban karin. markasta maxkamaduhu iyo booliisku waa uu ka baxsan jiray. sanadkii 2020 weli waxa uu lahaa dacwado ka dhan ah oo maxkamadaha yaalay, dhac hubeysan oo uu ka geystay Nairobi iyo Nakuru. laakiin markii ugu dambeysay waxa uu maxkamad tagay September 21 2020 kadibna waxa uu ka baxsaday maxkamadii, balse waxa weli taagnaa kiiskiisa iyadoo maxkamaddu aysan laabin kiiskiisa. 17 bishii May ee sanadkii 2021 koox aad u hubeysan ayaa waxa ay dhac u geysteen haweeney ganacsato ah oo ku sugan xaafadda Eastleigh ee Nairobi ee wadanka Kenya. waxayna dhaceen markii ay iska caabisay iyada oo la dirirtay cabaar. tani waxa ay soo jiidatay indhaha xaafadda Eastleigh iyadoo dadku ay aad u hadalhayeen xilligaasi sheekada haweeneydaasi. booliiska ninka ugu sareeya Ahmed Rashid ayaa sheekadaasi maqlay, waxaana uu bilaabay ugaarsiga kooxdaasi. laakiin waxa la ogaaday in kooxdaasi dhaca ka geysatay xaafadda Eastleigh ee dalka Kenya, Nairobi ee dalka Kenya, in uu hogaaminayay Daniel. ugu dambeyntii markan waxa la soo gaaray 22 June 2021 waa subax aroor ah. Daniel waxa uu u dhaqmay sida nin aysan waxba ka qaldaneen sida dadka kale la mid ah. markii la gaaray galabtii, shirqool ayaa la maleegay. 2 nin oo mooto wata ayaa barbar socday gaariga uu watay Daniel.
24 xabadood ayaa lagu furay gaariga oo uu watay Daniel, waana uu istaagay xilligaas wixii ka dambeeyay. waxa rasaastaasi ku furay labada nin ee mootada wadatay. qofna lama soo qaban. warbaahintuna waxay sheegtay in koox aan heybtooda la aqoonsan ay dileen Daniel, balse ururka xuquuqda aadanaha ee magacoodu loo yaqaano Missing Voices waxay ku doodeen in booliisku ay dileen dil qorshaysan oo bartilmaameed ah isla markaana laga shaqeeyay. xaaskiisu waxa ay ku adkaysatay in uu ahaa ninkan ganacsade ka ganacsada baabuurta, mid ka mid ah dadka ugu akhlaaqda fiican, balse diiwaanka booliisku waxa uu muujiyay in ninkan uu ahaa nin sharcigu ka baxsaday. sidaas ayaana ay ku dhamaatay sheekada tuugii ugu doonista badnaa Nairobi iyo guud ahaan dalka Kenya. waa nin wajiyo badan, mar ganacsado ahaa, mar aabe ahaa, nin deeqsi ah, haddana dhinaca kale waxa uu ahaa hogaamiye kooxeed khatar badan oo baaba u daaray guud ahaan dadka Kenya. Thika Road ayaa noloshiisii ay ku soo gabagabowday markii laba nin oo ku hubeysan hub nooca loo yaqaano bistoolada iyaga oo sita mooto ay 24 xabadood ay ku soo afjareen xukunkiisa. waxa wali taagan su'aalo badan: ma cadaaladba, ma argudasha, mise waa dhamaadka ninkii loo yaqaanay tuugii ugu halista badnaa Kenya? su'aalahaasi iyo dilka qorshaysan ee ninkan lagu dilay, dad badan waxa ay wali isweydiinayaan sidee ayay jawaab ugu heli karaan dadweynuhu. inkasta oo ninkan uu ahaa nin dilaa ah, nin marar badan maxkamaddu ay dil ku xukuntay, haddana sida loo dilay ayaa muran badan dhaliyay. bal adigu aragtidaada tani waxay ka mid tahay sheekooyinka xiisaha badan ee halkan aan ku soo gudbino. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. haddii aad nagu cusub tahayna ku soo biir YouTube-keena Xuseen Xaaji Xasan.